السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawow FN Academy waa anigii ahaa walaalkiini Taamir Maxamed sida wada ognahay waxaan kusoo guda jirnay kooriskii ahaa barashada softwareka Adobe Photoshop waxaan horey usoo qaadanay 3 cashir oo ka mid ah kooriskaas kanna waa cashirkii afraad ee kooriska kusoo dhawow cashirkeeni maanta cashirkan kii ka horeeyay waxaan kusoo baranay markaa saddexdan tool ee ugu horeeyo anagoo sharaxnay saddexdaas tool iyo markaa toolal kale ee ka faraamaan sidoo kale cashirkaas waxaan kusoo aragnay markaa sida toolashaas loo adeegsado anagoo ku jarjarnay markaa waxyaalahan hortaada ka muuqdo haddii aadan daawan cashirkaas waxaan kusoo saarayaa qaybtan kore ee videoga ama waxaan kuu dhigayaa linkiga hoose ee descriptionka videogan halkaas ka daawo aan gudubna cashirkeeni maanta cashirkeeni waxaan ku baranaynaa sida loo sameeyo edhikaarkan aadka u quruxda badan cashirkeeni dhexdiisa waxaan ku isticmaali doonaa 2 file labadaas filena waxaan kuu dhigayaa markaa linkiga hoose ee cashirkan ee kala deg si aan u samaysano edhikaarkan tilaabada ugu horey aan qaadayna aan dhammaanteen isla ognahay waxay tahay inaan samaysano markaa file cusub waxaan aadaynaa halkan ay qoran tahay file kadib waxaan dhahaynaa new ama waxaad taaban kartaa control n oo markaa keyboardka laptopkaaga ka mid ah aan dhahno new kadib markaan new dhahno kadib cabirkan aad arkaysid waa cabirka edhikaarka marka waa mid dhirir ah waana noocyada hadeertaan la adeegsado halkan aad arkaysid oo markaa balaca inoo ah waxaa inoogu qoran 640 sidoo kale waxaa dhirir inoo ah 1000 sidoo kale markaa waxaan ku halbeegnay pixel meeshaan aan ku qorano markaa edhikaar meeshaan arkaysa markaas ku qoran tahay RGB sidaan hore usoo sheegay RGB waxaa loo adeegsadaa sheyga markuu yahay shay aan la daawacaynin edhikaarka maadaama uu yahay shay la daawacayo waxaan adeegsanaynaa nooc lagu magacaabo markaa CMYK kadib waxaan leenahay create sida arkaysid wuxuu inoo sameeyey cabirka edhikaarka hadda asigoo aan waxba ku qornayn markaa aan aadna edhikaarkii sida arkaysid edhikaarkeeni waa kan oo marka waxaan sameynaynaa inaan nashqadan aan sameyno ugu horeyn waxaan ka bilaabaynaa qaybtan gadaal aad arkaysid sidaan qaybtan gadaal aan u sameyno aan aadno markaa edhikaar marka koowaad waxaa ka muuqday markaa qaybtaas aan ku laabanay sawirkaas sida arkaysidna waa markaa sawir halahan haafi ka go'an aan aadno qaybtan kadib waxaan aadaynaa midkan lagu magacaabo pen tool haddaba waa maxay pen toolkan aad arkaysid wuxuu qabtaa shaqooyin badan waxaad ku samayn kartaa markaa wax lagu magacaabo markaa bath sidoo kale waxaad ku samayn kartaa shape oo aad adiga maskaxdaada ka abuuratay aan doorano color aan ka dhigna green halkan waxaa lagu magacaabaa stroke waana arki doonaa wuxuu taro hadda waxaan ku tusayaa sida pen toolka aad shape ugu abuuran karto halkan click ku sii ama meel walba aad doonto ayaad markaas click ku siin doontaa kadibna halkan haddana click ku sii then waxaad samaysaa halkan inaad click ku siiso kadib halkan aad click ku siiso haddana aad halkan click ku siiso sida arkaysa deertan wuxuu inoo sameeyey markaa shape caadi ah oo markaa rectangle ah shapekii hore aan arki jirnay wuxuu ugu duwan yahay inuu geeskan ka leeyahay markaa color black ah colorkaas black ah ma ahan wuxuu pen toolka watay rectangle xitaa wuu leeyahay haddii aan ku laabano markaa rectangle-ka kadib aan sameyno halkan shape kale sida arkaysid shapekan asna wuxuu wataa colorkii hadda oo kale colorkan ma ahan wax pen toolka u khaas ah waa markaa halkan aad arkaysa ay ku qoran tahay stroke haddaad non aad dhahdo meeshaad aad taabato sida arkaysa colorkii hadda uu ka baxayaa waxaad awoodaa markaa color kale inaad ka dhigato oo sida gaduud oo kale ama color kale colorkaad doontid ayaa markaas ka dhigan kartaa sida arkaysid haddii aad u baahan tahayna halkan ayaad ka yareyn kartaa marka hadba xadigaad doonto aad ka dhigi kartaa aan iska dileedno waxyaalahan si aan u dileedno waxyaalahan ugu horeyn waxaan taabanaynaa midka aan rabno inaan dileedno waxaan dileedi karnaa qaabo badan in markaan doorano kadib aan aadno halkan kadib aan taabano delete kadib aan dhahno yes wadadan waa wado dheer waxaad samayn kartaa inaad doorato markaa sheyga aad rabto inaad dileedo kadibna keyboardkaaga aad ka doorato buttonka lagu magacaabo delete sida arkaysid asna wuu dileedmayaa markaan gudagalna cashirkeeni ugu horeyn waxaan sameynaynaa markaa sida arkaysid markaa sawirkaas gadaal yaalo si aan u sameyno waxaan aadaynaa pen tool kadib halkan ayaan iska xiraynaa oo strogii ahaa kadib waxaan isku dayaynaa inaan sameyno shape markaad soo qaadato pen toolka kadib si aad ugu samayso shape waa inaad markaa meel ku dhufataa adiga kugu xiranta haddaad doontid dhexda aad ka bilaabi kartaa haddaad rabtidna geeska hadba markaa nashqada shapeka aad u samaynaysid ayay ku xiran tahay aan ka bilaabo aniga halkan kadibna aan ku xijiyo halkan aan usoo doga qaybtan hoose markaa kadibna markaa aan taabto meelahan oo kale kadibna aan ku xiro markaa afkii aan kasoo bilaabay sida arkaysa deertan wuxuu ii sameeyey hal shape ah adiga waad samaysan kartaa markaa shapeka sidan oo kale ah ama waxaad ku samayn kartaa noocaad rabto aan ku laabano markaa meeshii hadeertan aan ka imaanay sida arkaysid marka halkan waxaa yaala sawir iyo markaa loogo iyo magac haddaba sidee usoo gelin karaa sawirkaas iyo loogadaas iyo magaca aan aadna sawirkan waxaan kusoo dhigi doonaa qaybta hoose sidaan kuu sheegay asagoo file ah
marka sawirkan markaan rabno inaan qaadno waxaan dooranaynaa ugu horeyn markaa move toolka markaan doorano kadib waxa markaa muusku dul saaraynaa sawirka then anagoo kiligta la hayno ayaa markaa qaadaynaa oo waxaan geynaynaa meeshaan ay ku qoran tahay id card marka meeshaan geeyo id card ay ku qoran tahay kadib halkan ayaa keenaya marka sidaa arkaysid halkan waxaa iisoo galaya calaamada ku darta ama balaasta kadib waan sii deynayaa haddeertan sidaa arkaysid halkan wuxuu kusoo daray sawirkii sidaa arkaysid aad ayuu u weyn yahay marka si aan u yareyno sawirkan waxaan taabanaynaa markaa control menus oo waxaan yareysanaynaa ugu horeyn screenka markaan taabto control menus kadib waxaan taabanayaa markaa control t wuxuu ii fududeynaya inaan arko markaa geesahan aad arkaysid geesahanna markaa mar walba maahan inaad taabato control menus hadba waxay ku xiran tahay sawirka iyo cabirkiisa maadaama sawirkan uu aad u weynaa sidaas ayaan taabtay control menus markuu inoo sameeyay geesahan aad arkaysid kadib waxaan isku dayaynaa markaa inaan soo yareeno anagoo qabanayna midkan markaan saas u soo yareyno kadib muuskii ayaan dulgeynaynaa halkaas kadib waan soo jiidaynaa meeshaan ayaan ku daynaynaa kadib waxaan taabanaynaa halkaan ay ku qoran tahay markaa calaamada tigta ah aan dhahan haddeertaan control plus si aan u aragno full screenka control plus iyo control menus markaa disaynkaaga wax ma kusoo kordhinayo keliya waxaad ku maamulaysaa shaashadan inaad soo dhawaysato inaad markaa iska fogeyso sidaa arkays sawirkii haddeertaan waa inoo soo galay marka waxaan kor u qaadaynaa disaynka kadib sawirkan waxaan geynaynaa halkan sidaa arkaysid marka sawirkan iyo qaybtan mislahan sababtay tahay qaybtan sawirka halkan hoose lagama arkayo si aan sawirkan u qorino waxaan markaa aadaynaa halkaan ay ku qoran tahay layer markaan aadna halkaan ay ku qoran tahay layer kadib shapekan iyo sawirka waan dul saarayn oo waxaan kor geynaynaa sidaa arkaysid sawirka oo ah layerkan kadib waxaan taabanayaa right click waxaa ii soo baxaya daaqadan yar kadib waxaan leeyahay create mask sidaa arkaysid haddeertaan sawirkii wuxuu la facaaday markaa shapekii haddaaya meesha yaalay oo markaa shapekiina wuu qarsoomay waxaas waxaa lagu magacaabaa creative mask asna markaa in badan waan arki doonaa insha allah haddeertaan sawirkii ayaan samaysanay oo marka waxaa inaga dhiman design yar sidaa arkaysid aan ku laabano marka designka sawirkan sidaad arkaysid marka waxaa ku furan kalarka cagaarka ah aragna sidaan ugu furno kalarkaas cagaarka ah waxaan markaa koobiyeynaynaa shapekan waxaan aadaynaa halkan kadib waxaan leenahay click oo waxaan click ku leenahay shapekan kadib waxaan taabanaynaa control j wuxuu inaga caawinayaa inuu inoo sameeyo duplicate ama waxaad samayn kartaa ankalaabte waxaad samayn kartaa inaad aado shapeka kadib dushiisa aad ku dhahdo right click kadibna aad dhahdo markaa duplicate layer sidaa arkaysid asna markaa wuxuu ku leeyahay waxaan kuu sameynayaa hal shape oo markaa copy ah waxaad leedahay okay labadaas qaab ayaad markaa shayyaashaada koobiyeyn kartaa waad u badin kartaa waxaan kuu fudud control j inaad taabato ama waxaad markaa samayn kartaa qaabkan kale sidaa arkaysid haddeertaan wuxuu sameeyey laba shape sidoo kale wuxuu inoogu dheelay markaa shaqadii halkan oo markaa daay aan ka qabanay oo sawirkii sidaa arkaysid meel uu ku jiro malahan uuna soo weynaaday si aan sawirkan booskiisa ugu celino mar kale ayaan waxaa leenahay right click kadib waxaa leenahay create mask sidaa arkaysid marka sawirka sidii hore ayuu ku laabtay marka waxaan aadaynaa shapekan kale ee layerka inoo yaalo kadibna waxaan qabanaynaa markaa lift click anigoo sawirkii hayna ayaan kor u jiidaynaa oo markaa waxaan ku fasaxaynaa qaybtan sidaa arkaysid haddeertaan sawirkii kor ayuu aaday marka wuxuu qariyay screenkan si aan u aragno screenkan waxaan sameynaynaa opacityga sawirkan inaan yareeno sidaa arkaysid haddeertaan markaa waxaan aragnaa sawirkii oo gadaal backgroundiga oo markaa asigoo markaa laciif ah oo waxaan u aragnaa qaabkii aan hadaayo u arkayni oo kale haddeertaan waxaa inaga maqan keliya markaa loogadii iyo magacii meesha yaalay waxaan ku tusayaa markaa sida loo soo gelinayo adig waxaad adeegsan kartaa markaa haddaad leedahay astaan ama loogo ama markaa shirkadda aad wax u samaynayso loogadeeda aan adeegsana anaga midkan halkan yaalo oo keliya oo waxaan sameynayna anaan soo qaadano midkan anagoo click dhahayno kadib waan soo jiidayna halkan ayaan keensanaynaa marka halkaan keensano kadib haddana waxaan soo qaadanaynaa markaa qoraalka oo asna waxaan keensanaynaa halkan aan ku sheega hal mid ha isdhihin markaa sawir walba aad photoshop soo geliso waxyaalaha saaran waad qaadi kartaa waxaan sababta aan qaadayo waxay tahay waa design aniga aan soo samaystay waana markaa bsd file aan ku tuso waxyar markaa farqiga u dhexeeya bsd file iyo markaa sawirka caadiga ah waxaan aadaynaa markaa file explorerka markaan aadna kadib sawirka caadiga waa midkaan aad arkaysid oo markaa caadiga iska ah sidoo kale midkaan aad arkaysid ee saaran nashqadan waa markaa waxaa lagu magacaabaa bsd oo haddaan kilig dushiisa ku dhaho wuxuu keenayaa photoshopka marka wuxuu isku bedelayaa design oo wax walba aad markaa ka badbedeli karto waan arkaynaa qaabka wax loo save gareeyo marka asigoo bsd ah iyo marka asigoo sawir caadi ah aan usoo laabano cashirkeena sidaa arkaysid markaad waxaan keenay loogadii iyo qoraalkii marka waxaan u baahanaa isna inaan iftiinka aan u gaabino sidaan iftiinka ugu gaabin karnaa waxaan sameynaynaa marka inaan hal mar isla doorano marka loogada iyo qoraalka si aad laba shay isla doorato waxaad u samayn kartaa laba qaab markii aad joogto screenkan waxaad taabanaysaa ugu horeyn shayga koowaad kadib waxaad qabanaysaa shift oo markaa keyboardkaaga ka mid ah kadib waxaad taabanaysaa shayga labaad
haddeertan waxaad awoodaa labada shay inaad isla dhaqaajiso oo meeshaa rabto aad geyso. Waxaa jira qaab kale markaad joogto layerka waxaad samaynaysaa inaad taabato control kadibna aad doorato mid ka mid ah shayga aad rabtid inaad qaado, haddana waxaad taabanaysaa adoo controlka haaya markaa midka kale. Sida arkaysa haddeertan labadaba waa doormeen oo haddaan halkan aado labadoodaba way isla qaadmayaan. Marka aniga ma rabo inaan hal mar isla qaado haddeertan waxaan markaa ku toosinayaa qaybta design-ka ee ku fadhisay hadaaye. Markaan ku toosiyo kadib haddeertan ayaa marka labadooda isla select gareynayaa. Markaan isla select gareeyo kadib waxaan ka hoos marinayaa markaa shape-kii cagaarnaa ee iftiinka inoo gaabinayay. Markaan ka hoos mariyo kadib haddeertan sida arkaysa markaa qoraalkii iyo loogadii iftiinkii wuu u gaabtay. Aan kusoo laabano design-kii markaan kusoo laabano design-kii kadib aan ku celino shape-ka meeshii hore sidoo design-kii inooga haleen. Markaan kusoo laabano kadib waxaan sameynaynaa tilaabada xigta markaa waxaan sameynaynaa shape-kan aad arkaysid ee dhexe iyo markaa shape-kan uu sawirka ku jiro. Aan imaana markaa ID card waxaan dooranaynaa meeshan ay qoran tahay markaa rectangle oo aan cashirkii hore kusoo aragnay. Rectangle markaa wuxuu ka mid yahay shape tools kala isticmaalo. Waxaa jiro ellipse tool, waxaa jiro triangle tool iyo kuwa kale. Dhammaantoodna way isla siman yihiin. Waxaa jiro waxa lagu magacaabo custom shape aan ku arki doono casharadeenii dambe insha Allah. Marka haddeertan aan soo doorano rectangle. Markaan soo doorto rectangle kadib waxaan sameynayaa markaa rectangle dheer oo halahan iga qarin karo. Ugu horreyn waxaan markaa kasoo bilaabayaa meeshan oo ilaa halkaan ayaan jiidayaa. Sida arkaysa haddeertan wuxuu ii sameeyay markaa hal rectangle oo dheer. Waxaan rabaa marka rectangle-ka inaan qaloojiyo. Aan ku laabano nashqadii. Sida arkaysid markaa kan waa mid jiif ah. Anagana markaa waxaan rabnaa midkaan inaan ka dhigno mid jiif ah. Si aan midkaan jiif ugu dhigno waxaan taabanaynaa control T kadib wuxuu inoo sameynayaa highlight-kii hadaaye oo kale. Kadib muuska ayaan dulgeynayaa markaa qaybtan kore. Sida arkaysid waxa ii soo baxaya markaa labo falaar oo qaloocan. Anoo markaa click tahayo ayaa markaa falaarta qaybta kore u jiidaya. Sida arkaysid markaa waan qaloocin karaa hadba meesha rabo ayaan geeri karaa. Marka sida tan ayuu ahaa midkii hadaaye oo sida tan ayaan ka dhigayaa. Waxaan aadayaa markaa move tool-ka. Markii aan aado move tool-ka kadib waxaan isku dayaa marka inaan dhaqaajiyo. Sida arkaysid haddeertan waxaan keenayaa halkan oo wuxuu noqday isla design-kii hadaaye oo kale. Waxaa ka maqan markaa wax yar oo ah cadaankan yar ee halkan kala goynayo. Si aan cadaankaas ugu sameynana waxaan markaa sameynaynaa inaan aadno meeshan ay qoran tahay shape kadib aan markaa soo furno wixii hadaaye ee lagu magacaabay markaa stroke markaan aadno kadib waxaan dooranaynaa kalarka cadka ah. Markaan doorano kalarka cadka ah sida arkaysid markaa si zaid ayuu markaa halkan u dheereeyay. Si aan u gaabino waxaan aadaynaa markaa halka ay qoran tahay rectangle kadib waxaan aadaynaa halkan ama falaadhan yar aan furaynaa. Kadib markaa waan yaray karnaa oo sida arkaysid waxaan ka dhigi karnaa cabirka uu yahay nashqadii hore. Sida arkaysid haddeertan markaa waxay dhan way isla facaadeen oo nashqadii hore nashqadan waa laba nashqad oo isleh markii laga fiirinayo intan. Waxaa markaa inaga dhiman shape-kan halkan ku jiro iyo markaa wareegan kale halkan ku jiro. Aan ku laabanay nashqadii haddeertan aan sameynayne kadib waxaan markaa aadaynaa rectangle tool waxaan ku leenahay dushiisa right click kadib waxaan soo dooraynaa ellipse tool. Markaan soo doorto kadib haddeertan waxaan awoodaa inaan sameeyo shape-kii wareega ah ee halkaas aan kusoo arkaynay. Waxaan qabanayaa ugu horreyn shift si shape-ka wareega ah igaga qaloocan. Kadibna waxaan markaa anagoo click tahay aan jiidayaa wareegi oo waxaan sameyn karaa markaa shape wareeg ah. Markii aan sameeyo shape-kan kadib waxaan keensanayaa halkan. Sida arkaysid haddeertan halkan iyo markaa halkan way is leeyihiin oo wax yar cabirka ayaa khaldan. Aan weyneyno shape-kan. Marka si aan weyneyno waxaan taabanaynaa control T. Markuu inoo soo baxay highlight-kana waan jiidaynaa oo sida arkaysid shape-keeni wuxuu noqonayaa mid weyn. Haddeertan waxaan sameynay markaa shape-kii waxaan kusoo darsanaynaa sawirkii hadaaye. Sida arkaysid sawirkan ayaan kusoo darsanayaa. Asna sawirkan waxaa kuu dhigayaa markaa qaybta hoose ee videogan ee kala deg iyagoo hal file ah. Waxaan aadayaa markaa sawirka anoo hayo ID card oo halkan ID card ayaan imaanayaa. Kadib sawirkii markuu ii soo saaray calaamadan plus-kana waan sii daynayaa. Haddeertan sawirkii aad ayuu u weyn yahay. Si aan sawirkan u yareeyo mar kale waxaan taabanayaa control minus oo screen-ka ayaan dib u celinayaa. Markii aan screen-ka dib u ceshto kadib markaa waxaan awoodaa haddeertan sawirkan inaan yareeyo waxaan taabanayaa control T. Markuu ii soo saaro highlight-kana markaa waan yareynayaa sawirka oo xadigii aniga aan rabo ayaan geysanayaa. Markii aan yareeyo sawirka kadib waxaan taabanayaa halkan tigta yar aad arkaysid. Kadib waxaan qabanayaa control plus. Aan kugu celiyo mar kale control plus markaa ma bedeli doono nashqadaada kaliya wuxuu awood kuu siinayaa inaad markaa dib iskaga celiso screen-kan. Sidoo kale control plus bedelkiisa waxaad sameyn kartaa inaad adeegsato halkan ama inaad adeegsato tool-kan. Tool-kan waxaa lagu magacaabaa zoom tool oo markaa sida arkaysid wax ayuu kusoo weyneynayaa. Haddii aad halkan dooratona markaa dib ayuu kaaga celinayaa. Control plus-ka marka wax kale ma ahan waa tool-kan adigoo adeegsanaya camal. Haddeertan sida arkaysid marka sawirkan aad ayuu u yar yahay. Aan dhahno control T kadibna sawirkan aan la ficilsiino markaa halahan. Haddeertan sawirka marka waxaan rabnaa inaan jarno oo aan ka dhigno sidaan oo kale. Sawirkan sida arkaysid geesaha lagama arkayo.
si aan sidaan ugu dhigno markaa waxaan sameynaynaa inaan isdul saarno ellipse toolka iyo sawirka. Ellipse toolka inaan marino qaybta hoose, sawirkana aan marino markaa ellipse toolka korkiisa. Markaan sidaas sameyno kadib waxaan taabanaynaa sawirka dushiisa anagoo joogno right click. Markaan right click taabano kadibna waxaan leenahay create mask. Sida arkaysa deertaan sawirkii wuxuu dhex galay shape-kii, laakiin qaybtan hoose ayaa maxaa muuqda markaa cagaar yar. Si aan cagaarkaas yar u baabi'ino waxaan taabanaynaa control T, kadibna markaa waan weyneynaynaa sawirkii. Sida arkaysa deertaan cagaarkii yaraa wuu baaba'ay, laakiin designkana weli waxaa ka maqan hal shay, shaygaas oo ah markaa wareegan yar ee markaa gariijaha ah. Si aan u sameyno wareegaas yar ee gariijaha ah, waxaan aadaynaa layerka, kadib waxaan dooranaynaa shape-kii hoose ee ellipse toolka ahaa oo wareega. Kadib markaan doorano shape-kaas, waxaan aadayaa markaa qaybta shape-abka. Ogow qaybtan waxaan u aadaya waxay tahay adigoo meeshaan aadin shape-ka wax ma ka bedeli kartid. Aan aragna hal mar. Marka aan taabto isla markii move toolka waxaa baxaya markaa waxyaalihii halkan inoogu soo baxay. Aan ku laabto markaa shape-ka. Markaan taabto kadib shape toolka waxaan aadayaa stroke, kadib waxaan ku furayaa strogan greyga ah. Sidaad arkaysa deertaan strogi aad ayuu u weyn yahay. Si aan u yareeyo strogan waxaan furayaa falaadhaas yar, kadibna markaa strogi waan yareynaya oo waxaan ka dhigayaa xaddiga aan markaas aniga aan rabo. Haddeertaan waxaan sameynay markaa nashqadayna qayb ka mid ah. Waxaa inoo dhiman markaa qaybta kale ee markaa designkan yar ee halkan yaalo iyo waxyaalahan kale. Waxyaalahan kalena markaa waxaan ku baranaynaa cashirkeeni soo socdo. Intaan cashirka dhameynin ka hor waxaan ku tusayaa markaa qaab kale oo sawiradan aad halkan u keensan karto. Tusaale camal sawiradan hadduu markaa Photoshopka kugu jirin, waxaad u keensan kartaa halkan laba qaab. Inaad taabato markaa halkan ay qoran tahay file, kadib aad dhahdo open. Markaad open aad dhahdo kadib waxaad sameynaysaa inaad soo gashato markaa halkan sawiradaada oo waxaad aadaysaa meesha sawirada ay ku yaalaan kadib waxaad soo dooranaysaa sawirka aad rabto, kadib waxaad leedahay open. Sida arkaysa deertaan sawirka sida tan ayuu kugu soo furayaa. Ama waxaad sameyn kartaa qaab kale oo inaad aado markaa shayga aad sameynaysid, kadib aad taabato markaa file. Markaad taabato file aad kasii aado meeshan ay qoran tahay place linked. Markaad aadid kadib waxaad awoodaa haddeertaan inaad markaa sawir aad soo geliso. Labada farqi ay kala duwan yihiin waxay tahay markaa midkaan sawirka wuxuu ku keenayaa halkan aad arkaysid, midkaan kale markaa sawirka wuxuu kugu furayaa markaa meel kale oo wuxuu kaligiis u yeelayaa markaa page kale. Adiga ay kugu xiran tahay qaabka aad u soo gashan lahayd. Cashirkeeni maanta halkaas ayuu ku eg yahay. Waxaan ku baranay sida loo sameeyo designkan yar ee quruxda badan. Cashirka xigna waxaan dhamaystiri doonaa markaa waxyaalahan kale ee hoos yaalo, sida markaa loo abuuro qoraaladan iyo waxyaalahan kale. Cashirkeeni maantana halkaas ayuu ku eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.